madaxweyne Donald Trump ayaa si toos ah ugu digay Iran isaga oo ku hanjabay in Mareykanka uu qaadi doono tallaabo military oo culus haddii ay sii socdaan dhimashada mudaharaadyada galay toddobaadkoodii labaad. waxa uu sidoo kale u goodiyay Cuba, Colombia iyo jasiiradda Greenland oo hoos tagta dawladda Denmark. waa erayo ku soo aaday kadib qafaalkii madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro iyo xaaskiisa. haddaba sidee ayay Iran ugu diyaarsan tahay military ahaan una wajahaysaa cadaadiskan? maxay yihiin tallaabooyinka Ruushka, Denmark iyo Shiinaha ee isballaarinta Mareykanka? su'aalahaas iyo kuwa kale ayaan ku lafaguraynaa tabinteennan Tifaftir Media ee soo dhawaada. isaga oo la hadlayay warfidiyeenka xilli uu saarnaa diyaaradda Air Force One, Donald Trump madaxweynaha Mareykanka ayaa ku hanjabay inuu weerari doono Iran. arrintan si aad ah ayaan ula soconnaa haddii ay bilaabaan dilka dadweynaha sidii ay hore u sameeyeen. waxaan u malaynayaa inay la kulmi doonaan weerar aad u culus oo kaga yimaada Mareykanka, ayuu yiri Donald Trump. hadalka Trump oo ah mid ku celis ah ayaa muujinaya in Washington ay si gaar ah isha ugu hayso xaaladda gudaha ee Iran. dhanka kale ila sirdoon oo la hadlay wargeys Ingiriis ah ayaa sheegay in Mareykanku uu leeyahay qorshe kale oo la diyaariyay. qorshaha labaad ama Plan B waxa uu si gaar ah u khuseeyaa Ayatollah Ali Khamenei iyo xubnaha ku xeeran ee ugu dhow ee qoyskiisa iyo la taliyaashiisa ah oo uu ku jiro wiilkiisa Mujtaba, kaas oo loo arko dhaxal sugaha Khamenei, ayay ku warantay ishaasi sirdoon. intaas kadib Donald Trump wuxuu hadallo adag ku weeraray Cuba isaga oo sheegay in dawladdeedu ay ku dhowdahay burbur. Cuba waxay u muuqataa dawlad qarka u saaran burbur, lama hubo inay sii adkaysan karto, ayuu yiri isagoo intaas ku daray Cuba waxay wali u jirtaa waa taageerada ay ka hesho Venezuela. Trump ayaa sidoo kale si kulul u weeraray Colombia isagoo eedayn culus u jeediyay hoggaanka dalkaas. waxa uuna yiri Colombia xaaladeedu waa liidataa, waxaa hogaamiya nin ku lug leh daroogada, kaas oo aan muddo dheer sii joogi doonin talada, ayuu yiri Trump. dhanka kale madaxweynaha Mareykanka ayaa mar kale adkeeyay mowqifkiisa ku aadan jasiiradda Greenland isaga oo arrintaas ku sababeeyay mid ku xiran waxa uu ugu yeeray amniga qaranka Mareykanka ee loogu qildayo qalalaasaha ay dunida ka fuliyaan. Greenland waxa ay muhiim u tahay amniga qaranka Mareykanka. midowga Yurub laftiisu waxa uu u baahan yahay in Mareykanku maamulo Greenland, ayuu yiri Trump. hadalladan isbiirsaday ayaa muujinaya isbeddel weyn oo ku yimid siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka, iyaga oo sare u qaadaya walaaca laga qabo in dunidu u gudubto marxalad cusub oo xiisad iyo ismaandhaaf caalami ah. sanadka 2026 ayaana la curtay xiisada aan hore loo arag. jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran waxay wajahaysaa cadaadis sii kordhaya sida ay warbaahinteeda tabisay saacadihii u dambeeyay. dhanka kale Ruushka wuxuu sii ballaarinayaa saameyntiisa isagoo xoojinaya joogitaankiisa agagaarka saldhigga nukliyeerka ugu weyn Yurub. isla markaas Faransiiska, Jarmalka iyo Britain ayaa ka hadlaya diyaargarow military oo looga hortagayo Ruushka, gaar ahaan jiidda dalka Poland, halka Mareykanka iyo xulafadiisuna ay indhaha ku hayaan bariga fog, gaar ahaan hawada Taiwan oo uu Shiinuhu ku foogan yahay. waxaa digniinaha Trump shidaal ku sii shubaya aydaada xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio, wasiirka difaaca iyo la taliyayaasha amniga qaranka ee aqalka cad, kuwaas oo shaaciyay inay jiraan 4 goobood oo suuragal ah inay la kulmaan xaalad la mid ah tii ka dhacday Venezuela. goobahaas waa Colombia, Cuba, Greenland oo hoos timaada Denmark oo ka tirsan isbahaysiga NATO, iyo sidoo kale jamhuuriyadda Iran. si aan sawir dheeraad uga bixino xiisadda, aan marka hore diiradda saarno Iran, kadibna waxaan faahfaahin doonaa sababta uu Trump u danaynayo Greenland inkasta oo ay Denmark dal saaxiib la tahay Washington. arrinta Iran haddii aan ku sii socono waxaa bansiin ku sii shubay ra'iisul wasaarihii hore ee Israel Naftali Bennett oo saacad calaamadeynaysa waqti kooban soo dhigay bartiisa X ama Twitter isagoo oo fariin dadban u diraya Iran. warbaahinta Israel oo dhan ayaa si isdaba joog u tabisay in tallaabo la mid ah tii Venezuela laga yaabo in laga fuliyo Iran. xubno kale oo ka tirsan maamulka gumaysiga sida Ben Gvir iyo Smotrich ayaa iyaguna hadallo kulul jeediyay, halka taliyaha guud ee ciidanka Israel uu si cad u sheegay in isku dhac laga filan kara Iran. ka hor inta aanan u gudbin jawaabta Iran, waxaa xusid mudan in Kuuriyada Waqooyi ay si cad uga digtay tallaabadii Mareykanku ka fuliyay Venezuela, iyada oo sheegtay in dunidu hadda ku shaqayso xeerka awood sheegadka ama waxa loo yaqaano qaanuun alqaaba. saacad kadib Pyongyang waxay tijaabisay gantaal ballistic ah oo dul maray badda Japan oo ah bahwadaag Mareykan. sidoo kale madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in wixii Venezuela ka dhacay ee albaabka u fureen burburka nidaamka caalamiga ah. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterresna waxa uu ku tilmaamay tallaabada Mareykanka digniin muujinaysa dhammaadka nidaamka caalamiga ah ee hadda jira.
dalal badan oo reer Yurub ah sida Spain ayaa sheegay inay aqoonsanayn wixii dhacay. Taas waxay muujinaysaa in hay'adaha adduunka gaar ahaan qaramada midoobay iyo golaha amnigu ay noqdeen magacyo uun awoodooduna ay si dhab ah u wiiqantay. Marka aan u imaano Iran, maxay tahay jawaabteeda? marka hore dawladda Iran waxay si ballaaran u xakameysay mudaharaadyadii gudaha inkastoo ay jireen dhibaatooyin dhaqaale iyo cadaadis bulsho. Haddana mudaharaadyadu way yaraadeen sababo dhowr ah dartood. sababta koowaad waa muuqaalka wiilka uu awowga u yahay shaahi reer Iran, Raza Pahlavi, oo taageerayaashiisu ay dibadbax ka sameeyeen Yurub iyaga oo wata calanka Israa'iil. Waxay ahayd arrin dad badan oo Iiraaniyiin dib uga riixday mudaharaadka. sababta labaad ayaa ah in dad badan oo reer Iran ah ay dareemeen in warbaahinta kaliya ee si cad u taageeraysay dibadbaxyada ay tahay tan Israa'iil. xataa dalalka Carabta ee sida adag uga soo horjeeda kacaanka Iran sida Sacuudiga iyo Imaaraadka si muuqata uma aysan ugu lug yeelan qadiyadan. arrintaas awgeed Israa'iil lafteedu waxa ay ka codsatay saraakiisheeda inay isxakameeyaan oo ay ka aamusaan xaaladda Iran si aan mudaharaadyada loogu nisbayn faragelin dhankooda ka timid isla markaana aysan u dhicisoobin. marka lagu daro adkeynta amni ee adag ee gudaha Iran, arrimaha oo dhan waxa ay keeneen in mudaharaadyadu ay si weyn u yaraadaan. dhanka militariga, telefishinka qaranka Iran ayaa saacadihii u dambeeyay baahiyay dhoolatusyo militari oo ballaaran kuwaas oo ka socda Tehran iyo Shiraz. inkasta oo Iran ay dhawaan samaysay dhoolatus militari ee ugu weynaa taariikhdeeda, haddana mar kale ayay bilowday mid cusub oo diiradda saaraya gantaalada ballistikada, kuwa hypersoniga iyo nidaamyada difaaca cirka oo la rumaysan yahay inay ka heleen Shiinaha iyo Ruushka. hadda codad cusub ayaa laga maqlayaa Tehran iyo Shiraz, kuwaas oo ay dawladdu ku sheegtay inay yihiin tijaabooyin iyo tababaro militari oo ballaaran. fariinta Iranna waa mid cad, taasoo ah dalku inuu diyaarsan yahay. su'aasha taagan ayaa ma Iran ayaa qaaday tallaabada ugu horeysay mise Mareykanka iyo xulafadiisa? warbaahinta Israa'iil iyo tan Iran mid walba waxay soo bandhigaysaa sheeko u gaar ah, laakiin hal arrin ayaa la wada og yahay. taasina waa in Mareykanka uusan weligii raalli ka noqonaynin quwad barbar jirta oo kula loolanta amarku taagleyntiisa adduunka. dhanka kale, madaxweyne Donald Trump ayaa si cad u sheegay inuu doonayo jasiiradda Greenland. xogayihiisa arrimaha dibadda ayaa isna xaqiijiyay in Washington ay doonayso inay maamusho Venezuela iyo Greenland, isaga oo si dadban u tilmaamay in xeer caalami ah oo wax xakameeya uusan jirin. sababta ayaa ah in Greenland ay tahay mid istaraatiiji ah. marka la eego khariidadeeda, Greenland waxay ku taallaa meel istaraatiiji ah oo ku dhow Canada iyo Yurub iyo badweynta Arctic-ga, halkaas oo mustaqbalka ganacsiga caalamiga ah uu u wareegi doono marka barafku dhalaalo. waana marin ganacsi oo waqooyi oo badbaadin doona waqti, shidaal iyo malaayiin dollar oo maanta baxda. Greenland waxa ku nool dad aad u tiro yar, waxayna hoos timaadaa Denmark oo xubin ka ah isbahaysiga NATO, isla markaana martigelisa saldhig military oo uu Mareykanku leeyahay. xukuumadda Denmark si cad ayay u diiday hadallada Trump, balse la taliyayaasha aqalka cad ayaa sheegay in Greenland ay tahay arrin amni qaran oo Mareykan. midowga Yurub oo hore ugu taageeray Mareykanka arrintii Venezuela, qafaalka lagu sameeyay Maduro iyo xaaskiisa ayaa hadda wajahaya xaalad adag, maadaama Greenland ay tahay dhul ka tirsan dal xubin ka ah midowga Yurub laftiisa. ugu dambeyn, dunidu waxay u muuqataa mid u socota xeerka kaynta ama duurjoogta, kaas oo ah mid ka xoog gala inuu go'aamiyo jihada la aadayo iyo waxa la yeelayo labadaba. Iran way diyaarsan tahay, Ruushku waa diyaarsan yahay, Mareykanka iyo xulafadiisuna waa diyaarsan yihiin. sidaas awgeed sanadka 2026 wuxuu noqon karaa sanad kala guur ah. waa mid u dhaxeeya dagaal caalami ah ama xasilooni adag oo hubaysan. laakiin marka la eego Trump iyo kooxdiisa, rajada deganaanshaha ayaa sii fogaanaysa. hadba halka geedigu gaaro ayaan idinkugu soo gudbinaynaa Tifaftir Media. ha moogaanina inaad nagu xirnaataan. waa Abubakar Maxamed oo idin leh, waqtigiina ayaad ku mahadsantihiin. nabad iyo warsan.